لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين walaalayaal cibaadooyinka ugu waaweyn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loogu cibaadeysto waxa kamid ah Ilaahay xuskiisa subxaanahu wa ta'ala dhikriga Ilaahay oo la xuso wuxuu Ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun wuxuu Ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'ala xusa haddaad xustaan waan idin xusayaa qofka Ilaahay xusaya subxaanahu wa ta'ala rabbiga weyn ayaa asagana xusaya والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وحالي سبحانه وتعالى رج إلهي حصة انت بضن يضمر كإلهي انت بضن حصة إلهي وحو دياري سبحانه وتعالى أجر آد وين أي إلهي دياري سبحانه وتعالى وإلهي دياري كرام أكتساء نبينا عليه الصلاة والسلام مركو تسالين qofka Ilaahay xuskiisa ka warhaya iyo qofka aan Ilaahay xusahayn bal tusaaluhu ku kala tusaaleeyay fiir nabiga kaleey salaatu wasalaam labada qof nabiga kaleey salaatu wasalaam qofka Ilaahay xusaya iyo qofka Ilaahay xusahayn waxay la mid yihiin mathalul hayy wal mayyit mid aan noolayn iyo mid nool oo kale la mid yihiin qofka Ilaahay xusaya oo dhikriga Ilaahay aan ilaawahayn Ilaahay qalbigu ka xusaya arabku ka xusaya qofkaas wuxuu la mid yahay qof nool qofka Ilaahay ilaaway xuski Ilaahay ka hilmaamay oo xuski Ilaahay ilaaway kaasna wuxuu la mid yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam qof dhintay oo kale inuu yahay ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam ku tusaalay saxaabadu la hadlay nabigu iyo inagana wayna la hadlayaa markaas wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam idin ka warama amalkiina amalka ugu khayrka badan oo idin ka khayr badan inaad dahab iyo fidda sadaqaysataan oo idinka khayr badan inaad jihaad gashaan oo cadawgiina qoorta idinka guro idinkuna aad qoorta ka gurtaan markaas ay rasuulka Ilaahay noo sheeg markaas nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam dhikrullah wa xuska Ilaahay amalka sida u fadliga badan ee sida u weyni waa xuska Ilaahay nabiga kaleey salaatu wasalaam xuska Ilaahay walaalayaal wax sahlan ma ah nabiga kaleey salaatu wasalaam nin baa u yimid markaas uu ku yiri rasuulka Ilaahay oo inna شرائع الإسلام قد كثرت علي شرائع الإسلام way ugu badatay oo macnaha wuxuu ka wada salaada marka la fiiriyo soonka marka la fiiriyo mid walba fadli badan baa ku soo arooray sunnayaashi ee rasuulka Ilaahay waxa ii sheegtaa amal aan ku dhego oo aan ka iska laalaadiyo ii sheeg markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri la yazaalu lisaanuka ratban min dhikrillah arabkaagaasi iyo ka qalalin Ilaahay xuskiisa subhanahu wa ta'ala xuska Ilaahay yuusan carabka uu ka qalalin mar walba Ilaahay xus subhanahu wa ta'ala mar walba Ilaahay carabka ku hay mar walba Ilaahay qalbiga ku hay xuska Ilaahay xusaysa habato ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam arintaas waxay tilmaamaysaa fadliga aadka u weyn ee dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay qofku yuu xusaa yuu xasuusnaada yuu sheegaayo ka sheekeeya wuxuu sheegaa oo xasuustaa cid qalbigiisa ku weyn wuxuu xasuustaa oo sheegaa qof agtiisa qiimo ku leh wuxuu sheegaayo xasuustaa cid agtiisa sharaf iyo karaamo iyo cizi ku leh Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala cid la xasuusto ugu weyn Ilaahay baa cid la xuso ugu weyn waxa la rabaa marka walaalayaal qofka muslimka ah dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo xuska Ilaahay inuusan ka noogin oo ka daalin waxaanu tilmaamaynaa dhikriga Ilaahay asagoo si guud u fadli badan oo xus kasto Ilaahay la xusaaya oo fadli badan yahay hadana waxa jira adkaar dhowr ah ama dhikriyo dhowr ah oo nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis badan ay kaga soo arooreen in fadli badan loo sheegay waxa kamid ah afarta kalmadood subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar afarta eray subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar oo nabiga uu kaleey salaatu wasalaam afartaas خير مما طلعت عليه الشمس وغربت waxay ka khayr badan yihiin wixii qorraxdu u soo baxday qorraxi u dhacdo oo dhan bay ka khayr badan yihiin nabiga kaleey salaatu wasalaam wax allaala wixii adduunyada dusheeda qorraxi u soo baxdo oo qorraxi u dhacdo waxa ka khayr badan nabiga kaleey salaatu wasalaam qofka afarta kalmadood laazima oo joogteeya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wuxuu nabigu sheegay kaleey salaatu wasalaam la yadurruka bi ayyihinna bada'ta afartan taa doonto ku bilaabi kartaa
subxaan allahi u horaysi, allahu akbar haddaad doontid u horaysi, afarta taad doontid ka bilow. afartaas un inaad celcelisid oo aad ku dikridaay waxay ka mid tahay waxyaalaha aadka u fadliga badan. culimada qaarkood albaaqiyaat الsaalixaat oo qur-aanka ilaahay ku sheegay oo ilaahay u yihi wاlbaaqiyaat الsaalixaatu khayrun, culimada qaar baa ku fasiray inay afartan kelmadood yihiin. dikriga labaad oo asagana fadliga badan u soo arooray waa saliga nebiga calayh الsalaatu wasalaam, qofku inuu badsado saliga nebiga calayh الsalaatu wasalaam. oo qofku markuu saliga nebiga badsado ilaahay buu xusay oo nebigii buu calayh الsalaatu wasalaam sharfay oo karaameeyey, oo maaragtay waxaa la dhaafayaa dembigiisii, oo wuxuu kaloo helayaa in hamigiisii adduunyo iyo kiisii aakhiraba ilaahay ka kaafiyo subxaanaه wa tacaala, oo umuurihiisa ilaahay fududeeyo ayay keenaysaa. gaar ahaan jumcada habeenkeeda iyo maalinteeda ayaa nebigu calayh الsalaatu wasalaam si gaara uga dardaarmay. dikriga saddexaad oo adkaarta fadliga badani ku soo arooray ah waa in la celceliyo yaa da اljalaali wاlإkraam, yaa da اljalaali wاlإkraam, yaa da اljalaali wاlإkraam. nebigaa dardaarmay calayh الsalaatu wasalaam. lafdiga celcelintiisa fadli badan buuna leeyahay, yaa da اljalaali wاlإkraam, yaa da اljalaali wاlإkraam. waa macnaheedu yahay ilaahaygii waxna karaamayn jiray weyniga badnaayow, wixii marka aad weydiisanaysay qalbigaa ku jiro o dhan ilaahay wuu ogyahay wuu ku siin. dikriga afraad oo adkaarta aadka ugu soo aroortay qur-aanka iyo sunnada waa istikfaarta, qofku inuu aad u istikfaarsado, astagfir اllah, astagfir اllah, astagfir اllah. dikriga inuu celceliyo siyaqa ay ku soo aroortay oo dhan, ama siyaqa gaabana astagfir اllahi oo keliya ah ha noqoto, astagfir اllaha oo keliya ha noqoto, ama ha noqoto siyaaqa dhaadheer ay ku soo aroortay astagfir اllaha aladii laa ilaaha ilaa huwa alxay alqayuuma waatuubu ilayh, oo nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu yihi qofka celceliya ama yidhaahdaaye waa loo dembi dhaafaa, xataa hadduu yahay qof jihaadkii iyo jidkii ilaahay loo dagaalamaya ka cararay oo dembi weyn galay, xataa waa loo dhaafaa buu nebigu yihi calayh الsalaatu wasalaam. marka istikfaartuna waxay ka mid tahay adkaarta fadaa'ilka badan iyo fadliga badan ee uu ku soo arooray ayay ka mid tahay. waxaa qodobka shanaad ah ama dikriga shanaad aynu tilmaamayno waa in la laazimo qofku au joogteeyo subxaana اllahi wabixamdihi, subxaana اllahi wabixamdihi. erey kooban wey, subxaana اllahi wabixamdihi, subxaana اllahi wabixamdihi. wuxuu nebigu sheegay calayh الsalaatu wasalaam qofka maalintii 100 jeer yidhaahda subxaana اllahi wabixamdihi, 100 jeer qofka yidhaahda ayuu nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu la mid yahay sidii qof wuxuu nebigu tilmaamay calayh الsalaatu wasalaam kow waxaa loo dhaafaa 100 dembi baa laga dhaafaa, 100 darajaa kor loo qaadaa. wuxuu la mid yahay inuu xoreeyey 10 adoon, 10 qof oo addoommo ahaayoo la addoonsanayey inuu xoreeyey buu la ajir yahay nebigu calayh الsalaatu wasalaam. qofna lama yimaado khayr ka wanaagsan waxa uu la yimid ilaa qof asaga ka sii badiyey mooyaane. meeshaad adigu 100 ka tidhi qof kaa sii badiyo 200 iyo 300 iyo la yimid mooyaane, qof intaa ka badan oo khayr ah maalinkaa la imaan karaa ma jira buu nebigu calayh الsalaatu wasalaam. marka waxaynu isu dardaarmaynaa walaalayaal si guud dikriga ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo xuska ilaahay inaynu joogtayno oo uusan carabkeena ka qalalin, si marka ilaahay subxaanaه wa tacaala nafta inaga qabanayo waxa ugu dambeeya inu ku hadalnaa ay u noqoto laa ilaaha ila اllahu muxamadu rasuulu اllahi salى اllahu calayh waalih wasalam. sababtoo qofku wixii qalbigiisa ku weynaan jiray ee carabkiisa ku badnaa ayuu markuu sii dhimanayana ku dhiman doonaa. wallahu aclam. salى اllahu waslm calى nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi waslm ajmaciin.